السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال kusoo dhawaada channelka Sooyaalka Media qodobadeenna ugu waaweyn maanta waxa ay kala yihiin kadib amarkii ka soo baxay dowladda federaalka Soomaaliya Kenya oo qaadgeysay magaalada Kismaayo. Dowladda federaalka Soomaaliya oo go'aan ka soo saartay qudaarta dalka dibadiisa looga keeno Soomaaliya iyo Ruushka oo ka wada hadlay barnaamijka dinacafinta Soomaaliya. dhankaas iyo wararka dibaddana waxaa ka mid ah xaaladda Soomaalida dalka Liibiya oo dagaal uu ka socdo. magacaygu waa Maslax Nasiib. fadlan haddaan u cusubtahay channelkan subscribe inoo saar si aad noola wadaagto wararkeena iyo warbixinadeena ugu dambeysay adigoo mahadsan. haatan kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan. kadib amarka dowladda federaalka ay ku mamnuucday duulimaadyada dalka, dowladda Kenya ayaa adeegsatay hab kale oo ay qaad ku geysay magaalada Kismaayo. siday sheegeen xildhibaanada magaalada ku sugan, Kenya ayaa la sheegay in shalay deegaanada Jubbaland ay ku soo daabushay doonyo sidii qaad, kuwaas oo ku soo xirtay dekedda magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland. arrintan oo lagu tilmaamay mid xadgudub ku ah madax-bannaanida Soomaaliya. xildhibaanada ayaa sheegay in doonyaha ay hore qaad ku keeni jireen Kismaayo, balse ay hadda qaad ka badan kii hore ku soo daabuleen magaalada. dowladda Soomaaliya kama soo bixin amar ay ku mamnuucayso doomaha ama si gaar ah ay ugu beegsanayso qaadka, sidaas darteed ma cadda in Kenya ay sharciga jebisay iyo in kale. dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan ku dhawaaqday inay joojinayso diyaaradaha ka imaanaya dalka dibadiisa kadib markii Itoobiya iyo Kenya oo daris laha Soomaaliya ay sheegeen in laga helay coronavirus. wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya Injineer Cabdullaahi Cali Xasan ayaa sheegay inay sharci ka soo saari doonaan joojinta qudaarta dibadda laga keeno iyadoo dalka laga heli karo. wasiirka ganacsiga Soomaaliya ayaa si gaar ah waxa uu diiradda u saaray dhinaca qudaarta oo qaarkood dibadda ka yimaadaan sida dalka dariska ah xilli laga heli karo dalka. waxa uuna sheegay inay joojin doonaan in dalka la keeno qudaarta laga heli karo Soomaaliya. wasiirka ayaa sheegay in dowladda ay tallaabadan qaadayso iyadoo ujeedku yahay in la dhiirigeliyo wax soo saarka gudaha dalka, taasi oo wax taraysa shacabka iyo guud ahaan dhaqaalaha dalka. dhinaca dowladda Ruushka waxaa shirka fadhiyay wasiir ku-xigeenka maaliyadda lagu magacaabo Timal Maximov, waxaana looga hadlayay dadaalka dowladda Soomaaliya ugu jirto in deymaha laga cafiyo doorka dowladda Ruushka. war qoraal uu soo saaray wasiirka maaliyadda Soomaaliya Dr. Bale ayuu ku sheegay inay ka wada hadleen sidii Ruushka uu Soomaaliya deynta uga cafin lahaa. dowladda Ruushka ayaa ah dowladda labaad ee lacagaha ugu badan ku leh Soomaaliya, iyadoo rajo weyn laga qabo in laga cafiyo deymahaasi dowladda Soomaaliya. dhowrkii maalmood ee ugu dambeysay dagaal xooggan ayaa ka socday bartamaha magaalada Tripoli, caasimadda dalka Liibiya. dagaalkan ayaa u dhexeeyay ciidamada dowladda ee qaramada midoobay aqoonsan tahay iyo kuwa daacad u ah Genaraal Khalifa Haftar ee fadhigoodu yahay bariga Liibiya. Tripoli waxay marti u tahay tahriibayaal hadafkoodu yahay ka gudubida badda Mediterranean-ka si ay u galaan Yurub, waxaana ka mid ah Soomaali. haddaba xaaladda ay ku sugan Soomaalida ayaa waxaa ka hadlay safiirka Soomaaliya u fadhiya Liibiya, Muxiidiin Maxamed Kaalmow. waxaan maqlaynaa hawa usii darnaato 3 maalmood ama 4 maalmood ugu dambeysay dhawaqa rasaas xoog leh aad iyo aad u xoogan oo madaafiic iyo gantaalo culus la soo dhacaya ayaan maqlaynaa oo habeen iyo maalin habeenkii baa ugu sii darnaatay ayaan maqlaynaa. marka wararku waxay noo sheegayaan awal magaalada daafaheeda ayuu waxay ka jireen, laakiin inay usoo saqeen dhinaca bartamaha inay usoo saqeen oo dhinacan kale oo magaalada maaragtay dhinaceeda waqooyiga iyo bartamaha ilaa waqooyi inuu dagaal kusoo saqay ayaan aad iyo aad warkeeda noo soo gaaray. marka jugta dhacayso maaragtay dhismihii safaaradda uuna la gargariiraya mararka qaarkood. Soomaali fara badan 3 bay u qaybsamaan. Soomaali kuwa gudaha saxaaraha jiro oo meelo magafayaasha ay ku haystaan meel yiraahdo Waliid iyo Said meel yiraahdo oo magafayaasha dadka ay ku haystaan lama deegaanka gudihiisa ah, kuwaas oo naga fogyiin meel aan la gaarin oo dowladda xataa aanay gaarin way ka afeefatay, iyo kuwa xerooyin dowladda ay ku jiro xabsiya ah sida mesela xabsigii ayaanta duqeynta ay ka dhacday dowladda haysatay oo kale qaar baa ku jiro oo badankooda kuwa sugay dib loo celiyo, iyo kuwa kale oo meesha ayagana ku xareysan ayaa jira. qayb saddexaad waa qaybo maaragtay kuwaan ahayn oo magaalooyinka la xsabaynayo marba iska socda ayaa jira, qaarkood safaarada nagu soo gaara, iyo kuwa kale oo maaragtay meelaha si ugu daxdareysan ayaa jira. marka qaybahaas oo dhan aad baan ugu baqaynaa. maxaan ku yidhahda magaalada waa bando lama socon karo, Soomaalidu in iska socoto ay jecel yihiin. xabado tan ayaa ku dhici karo, madaafiicdani waxaan dhacaya ayaa qaarkood haleeli karo, kuwa xareysan bay xataa haleeli karaa sida ayaan
aad dhaweyd kaalisadii dhacday oo kale. daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynaa wararkeena warkan warkii intaa kulmi doon waxaan kaga tegaa sidaas iyo amaana allah.